wax ka badan 4 bilood magaalada Cadaado iyo deegaano badan oo gobolada dhexe ah lagama isticmaalin lacagta shilin Soomaaliga oo horeyba loo kala sooci jiray. Lacagta kaliya ee wax lagu kala gadanayo waa dollar ha noqoto kaash ama tan taleefanada la iskugu diro. Arrintan waxaa ka dhalatay dhibaatooyin dhaqaale oo si weyn bulshada uga dhex muuqda. Marka laga soo tago ganacsiyada waaweyn, xitaa lacagta dollarka ayaa lagu kala iibsadaa ganacsiyada yaryar, waxaana jira ganacsiyadaasi yaryar qaarkood oo meesha ka baxay isticmaalka dollarka dartiis. Salaado Dhoore waxa ay goob shaax lagu cabo ku leedahay bartamaha magaalada. Waxaan weydiiyey saameynta ay ku yeelatay hakadka ku yimid isticmaalkii lacagta shilin Soomaaliga. markii lacagtii ay dhacday oo la yiri lacagtii way dhacday intii ka dambaysa wax iga iibsadaaba ma jireen. wax galabtaaba laba qofood oo fadhido koob shaah haysatay u jeeday wax iga iibsaday iyo wax iga gatay cabitaan ay fureed talaagada ay tii talaagada horta markii aan iska xir shaahna markii aan warkiis go laba qofood ima soo fariisato. Halkan waa goob ay dhalinyaradu isugu yimaadaan oo ay ku shaaxaan xilliyada ay shaqada isaga soo baxaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo aan kula kulmay goob ay ku caweynayeen ayaan kala sheekaystay saameynta ay reebatay isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga oo hakad ku jiro bilooyinkii la soo dhaafay. koobka shaaxa waxaan siisanaa 10 senti awrana waxaan siisan jirnay 3,000 oo shilin mar waxaan caabi jirnay haaf oo aan 2,000 oo shilin siisan jirnay hadda laakiin wax joo sameeyay waa inaan koob shaaxa cabnaa oo kaliya marka waxaan siisanaa koobka shaaxa 10 senti haafna waa ka baxay meesha. waxaa kaloo ka baxay waxay dadkii lacag isii jireen qof kasta EFC ugu soo tashaa dhalinyaradii shaax wada cabi jirtay ma wada cabta xataa qofka saaxiibka ah shaax ma ka bixi kartid. dadka Soomaalidana dollar ma yaqaanaan dollarka waxa u yaqaanaan wax weyn. arrintan dhibaato weyn bay ku haysaa bulshada Soomaaliyeed khaasatan deegaankan Galmudug Cadaado. arrimo badan baa ka jira dhaqaale burbura dan yartii waa ku baaba'een lacagtan la joojiyay. waa goob ganacsi oo kale waxaa lagu iibiyaa badeecooyinka yaryar iyo cabitaanada. Cabdinuur Cilmi Jiir waa milkiilaha dukaankan. hamigiisu waxa uu ahaa inuu kobac dhaqaale u sameeyo balse deganaansho la'aan dhaqaale oo ka dhashay inaan la isticmaalin lacagta shilin Soomaaliga ayaa caqabad ku noqotay hamigiisa. aniga waxaan joogaa goobtan ganacsiga waxaanan ka shaqeynaa inta badan waxyaalaha agabka ku socda shilin Soomaaliga si aad socoto lacagta shilin Soomaaliga ah tusaaladan ku soo qaato sakiinto kaleeto xanjado kaleeto cabitaanka noocyadiisa kala duwan sida jalaatada ice creamka iyo mid ugu yar waxaan ku iibi jirnay kushin ilmaha markay ka soo tagaan iskuulka break oo kaleeto ilmuhu ma wada haystaan telefoon dadka waaweyn telefoon ma awoodaan dhammaan waxay nooga geli jireen lacagta shilin Soomaaliga waxay waayeen lacagta shilin Soomaaliga saasna waxa ku istaagay haba yaraatee ganacsigii Socday dad ka maarma lacagta shilin Soomaaliga iyo dad aan ka maarmin ee dhammaan ganacsigoodii uu noqday midama waxa ka maarma dadka soo degsada alaabaha waaweyn ee dekadaha wax ka soo dejiya waxay wax ku gataan lacagta loo yaqaan EV Pluska iyo dollarka. laakiin ganacsiyada hadda aad dareemaysaan oo middle galaaska ganacsiyada yaryarka ah inta badan waxay ku shaqeeyaan kaashka boqolkiiba 88 waxaan weynay ganacsigeena. isticmaalka dollarka ma ahan mid u sahlaya bulshada oo dhan. dadka danta yar ayaana adeegsiga dollarka kaliya caqabad weyn ku noqotay noloshooda si ay sharaxayaan Xabiibo Cali iyo Salaado Nuur oo noloshooda ku maareeya dhaqista dharka. lacagta Soomaaliga ku shaqaysan jireen ilmaha baaliska noogu baxayeen gabdhaha dhaqaal ku baxayeen caadi aad baa ugu dhawaatoon dhaqaashan hadda maxaa lay sidii hortii maahan nolol maalmeedka baa dawaasana maraq maal ku shaqaysan jirin awal hor waa shaqaysan jirin salaadi kacana 189 soo gelis hadda maanta lacagta 189 keena mal laba dolar dilasaan ku nyaanyada xal u leeyahay laba filis tuur maxaa lay ku kale oo maraq subax xal u leeyahay kuwan tuur anigu laba filis ma kasen lacag Soomaaliya 20 waa ku shaqaysan jirin aykeena ma haysan hadda magaalada hadii u kacana 3 dolar dilasaan 3 dolar ma hilib ku gaadi ma ama qudaar ku gaadi aba ma ku soo adeegan lacagtii intii anu kale naga dhacday dad kale tanto ma ka dhicin. xabadan xanjada ah horaantii bishii 7 waxaa magaalada Cadaado lagu kala iibsanayay
kun shilin oo shilin Soomaaliya balse haatan waxaa lagu iibsanayaa 10 senti oo qiimo ahaan u dhiganta 3,000 oo shilin Soomaaliya. Deeqa uu Karjino warbaahinta qaranka Cadaado.